madaxweynihii laga adkaaday ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen oo haatan ku sugan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya ayaa weli ku adkeysanaya inuu yahay madaxweynaha sharciga ah ee maamulkaasi sida ay xaqiijiyeen ilo ku dhow. Laftagareen ayaa sidoo kale qoraalkiisa iscasilaada ee uu soo dhigay Facebook-giisa qariyay markii uu tagay magaalada Nairobi, inkastoo haddana mar kale dib loo soo celiyay qoraalkii, taasi oo dhalisay shaki iyo in dadku ay su'aalo iska weydiiyeen arrintaasi. Xubno isugu jira la taliyayaal iyo xildhibaano ku dhow Laftagareen ayaa xogtaani soo dusiyay, iyadoo Laftagareen ku doodayo inuu weli yahay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed inkastoo dagaal looga saaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Sidoo kale xubnahan ayaa sheegay in markii hore culays la saaray Laftagareen iyo wafdigiisa la iskuna dayay in diyaaradiisa loo leexiyo magaalada Muqdisho, iyadoo shuruud looga dhigay in marka hore uu iscasilo kadibna sidaas lagu oggolaaday inuu uga baxo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Arrintan ayaa durba waxaa ka dhashay hadalhayn iyo su'aalo la xiriira go'aanka cusub ee Laftagareen xilli haatan dowladda federaalka Soomaaliya ay dhaqdhaqaaqyo ka wado magaalada Baydhabo ayna ku howlan tahay dhismaha maamul gaar ah inta laga qabanayo doorashada guud ee maamulada. Horey Laftagareen ayaa markii uu qabsaday doorashadii degdegga ahayd u sheegay in la qasbay, sidaasna looga saxiixay heshiisyadii uu la galay dowladda federaalka Soomaaliya sida uu hadalka u dhigay. Si kastaba, maamulka Koonfur Galbeed ayaa haatan wajahaya marxalad cusub, waxaana haatan magaalada Baydhabo kusii qulqulaya siyaasiyiin ka soo jeeda deegaanka maamulkaasi iyo mas'uuliyiin heer federaal ah, iyadoo sidoo kalena qorshuhu uu yahay in dhowaan booqasho uu ku tago madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.